gobolka Sanaag waxa uu caan ku yahay goobo bilicsan oo soo jiidanaya indhaha bini'aadamka. halkani waa goob dalxiis oo kulansatay buuro dhaadheer, kaymo cagaaran iyo jawi degan, sidoo kalena kama maqna taariikho iyo aasaar dad hore. gaacid, xidhxidh, hareed iyo dowga tabca waa goobaha uu maanta Goobjoog TV martida u yahay, waxaana ay dhanka waqooyiga ka xigaan magaalada Cerigaabe xarunta gobolka Sanaag. wadada tabca oo ah tan goobahan qaarkood loo sii maro waa wado loo dhisay qaab la yaab leh, waxaana la dhisay sanadkii 1984. waxa la bilaabay 1984 afar sanadood baa wadadu socotay. taariikhdeeduna halkaas ay ku taalay, laakiin wadarankii baa baabiyay مع إنجنيرات ديساي تماتو بان ka xusuusnahay tamato markaa wuxuu yiri godkan markii la dalooliyay ay shaqadu dhamaatay 20 sanadood dabadeed marka uu biyaha keeno saqafka laga qaado saqafkan sare iminkana intay meeshii dilaac weyn keentay ayaa daad ka soo dhaca cid allaale cid u maqani ma jirto. cid isku taxallujinayso le war bahalka kanu intaan inagu dumin ilaa meeshana waa xidhmaysaa aan wax ka qabanana lama hayo. marka meeshani gurmad bay u baahan tahay, gurmad ilaahay iyo mid bani aadanba. halkani waa meherad ku taala bartamaha wadada tabca, waxaana lagu magacaabaa gacan libaax, waana goob ay buuro ku teedsan yihiin isla markaana ay ku nastaan dadka iskaga kala gooshaya magaalo xeebeed Maydh iyo sidoo kale magaalada Cerigaabe. dadka halkan yimaada aad ayay u mahadiyaan, halka wali kuwa aan imanina ay rajeynayaan in ay marin yimaadaan. daawadayaal wadadani waa wadada isku xiriirisa magaalada Cerigaabe ila iyo magaalo xeebeedda Shalaw. wadadani waa wadada iskaga gooshaan gaadiidka deegaanadaasi taga. wadadan waxaa la sheegay in waqtiyadii hore ay dhiseen raggii deegaankani oo ka mid ahaa Cali Guri. isla markaasina waxay raggaasi wadada ku dhiseen iska wax wadada intii aan ku soo jiray safarka iyagan oo saacado qaadanaya waxaan la kulanay iyadoo ah mid aad u burbursan, isla markaasina uu meel walba roob ku dawiyay. daawadayaal iminka waxaan soo gaadhnay deegaanka Daryale. halkani dabadayda waxa ku aasan Sheikh Sabaroon, waxaana taariikhdiisa inooga warbixin doona xaajigani oo aan kula kulanay degmadani. bal waxaad nooga warbixisaa taariikhda sheekha. taariikhda sheekhani wuxuu la mid yahay Sheekh Isxaaq oo kale. waa gartay gobol Sanaag iyo degmooyinkan iyo dalkan hadda ay joognaba waa taariikh ka weyn. waa gartay Sheekh Isxaaq bay isku taariikhiin ama waxaan ba jeclahay inuu ka hurdo waxoogaa ka weyn. ma jiraan dad soo siyaarta oo yimaada? way jireen markii hore waa jiri waqtiyo hore way jireen, laakiin iminka sidii dawladahan dambe iyo dadkan casriga ah u dhashay cidina ma timaado. miyaanay jirin maxay hay toqolay sheekhu markii hore wuxuu deganaan jiray deegaankan? sheekhu waa Sheekh Samaroon weey. waa gartay wuxuu nimankaas Samaroon Siciid la yiraahdo ee reer Gabiley iyo yaala wadanka ee madaxweyne ku xigeenka iyo ay ka mid yihiin. nimanka weeye waa ataartoodii weeyaan. waa sheekhaha Sheekh Samaroon weey. marka dadkii ataartiisa waa dadka casriga noqday waxa ku soo haray dadkii wixii reer Sheekh Isxaaq ay aqaaribka wadaageen iyo dalkii iyo magaaladiisa intaas ku soo hadho joogta. aad bad mahadsantahay. warsame kaaf Cabdirashiid Aadan, Goobjoog TV, Cerigaabe.